dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leenahay aan isku tashano aan isxilqaano aan kor u qaadno magaalada Soomaaliya waa taqaaniin waxay ahaan jirtay Soomaaliya waa taqaaniin Afrika meesha ugu sareyso oo lagu faano haddii ahaan lahayd awood haddii ahaan lahayd qurux haddii ahaan lahayd wax walbo Afrika ugu horumarsan inay mid ugu horeysa ahaan jirtay waxa ka dhigay muwaadin Soomaaliyeed oo u halgamay oo dhiigiisa iyo hantidiisa u huray marka annagana waa inaan noqonaa 30 sano burburka aan ka soo baxnay inaan dhiigeena iyo dhididkeena iyo hantideena aan u hurno dalkeena cid kale sugaayo ma lahan annaga ayuuna sugayaa maanta wixii ka bilaabato waxaan rajaynaa Soomaaliyo isku duuban Soomaaliyo midaysan Soomaaliyo wax walba ayada kaliya qabanayso dib u dhiska dalkeena waa burburay magaalada Muqdisho ah lama tartami karto caasimad kale adduunka lama tartami karto xaaladda ay ku jirtana waa ognahay meel walba waxa yaala qashin meel walba waa burbursan tahay saasay tahayna business waa socdaa noloshu waa socotaa hadda kuma dhex noolaan karno meel aan nadaafadeeda dhameystirnayn meel nadaafadeeda ficil kuma dhex noolaan karno dhismo burbursanna business laguma dhex ganacsi laguma dhex sameyn karo sidaas darteed qof walba oo muwaadin ah waxa ka saaran mas'uuliyad inaan dib u dhisno dalkan si aan taas u sameeyno waxaan idinka rabaa isxilqaan ku macnihiisu waxay tahay qof walba inuu waqti geliyo qofkii aanan xoogiisa gelin inuu xoolihiisa geliyo annagoo ah maamulka degmada Hodan iyo dhammaan bulshada kala gedisnaa degmada Hodan inayna soo booqdaan ama shaqo kormeer noogu yimaadaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir agaasimaha xiriirka degmooyinka gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir mudana gudoomiye waxaan gudanaynay awaamirtii ka timid madaxda sare oo ugu horeeyay madaxweynaha qaran oo ku baaqay in maaragtay la nadiifiyo wadooyinka magaalada Muqdisho bilicda kor loo qaado isla anagoo fulinayna awaamirtaas ayaan ka duuleena ayaan maaragtay maanta oo jimco ah sidaad u jeedaan waxaan ka howlgalaynaa wadada loo yaqaan Sodonka qaasatan hadda waxaan taaganahay Balaxi waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad dhiirigelinta iyo booqashada ay kormeerka noogu imaadeen alxamdulillah rabbil caalamiin baaqi madaxweynaha ayaan ka turjumaynaa wali oo ahaa isxilqaan xoogaga wadaniyiinta gobolka Banaadir ee Soomaaliyeed siday isku xilqaameen iyo maamulka degmada iyo gobolkii oo is hogaaminayo mudane madaxweyne sida og tahay amarkaaga iyo amaamiirtaada inta waa fulin degmooyinka iyo shacabka Muqdisho way qaateen waana qaban doonaa waana wadi doonaa mana istaagi doono sidaa sheegtay laguma noolaan karo caasimad wasaq ah dawladdu kuma shaqayn karto waa sax waana qaadanaynaa waana fulinaynaa mana dhici doonto insha Allah inay caasimadda wasaq noqoto sidaan ugu istaagnay waaye baaqaaga waa ka jawaabeen shacabka Soomaaliyeed wayna u hoggaansadeen hoggaanka shacabka u hiilinayo ama codka shacabka ku hadlaayo madaxweyne waa adiga shacabkaagiina waa diyaar waxayna diyaar u yihiin amaamiirtaada inay qaataan ayna fuliyaan hadda waxaan taaganahay waa isgoyska Balaxi waxaan hadda soo marnay degmada Yaaqshiid degmada Wardhiigley degmada Howlwadaag haddana Hodan waa taaganahay degmooyinka dhanna way ka wada socdaan nadaafadda mudane madaxweyne haddana waxaan gaareynaa Tarabuunka dhammaan degmooyinkaaga aad magaaladaada Muqdisho waxay u istaageen amaamiirtaada inay fuliyaan annagana adeegayaashaada oo shacabka inaan u adeegno u magacaabana waa dadaaleynaa waanu adeegeynaa bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir Soomaaliya isku tashada Soomaaliya baaqa madaxweynaha qaata madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu u taagan yahay shacabka inuu u shaqeeyo shacabka amaamiirta ay codkooda wuxuu ka soo baxan in la fuliyo dawladda hadda taagan waa dawladda shacabka waan inaa u istaagtiin sida gacan ku siin lahaydeen hadaa idinkan hogaaminina hadaa idinkan noo horseedina shacabka hadaadan amaamiirtiina iyo waxaad ratiin aadan noo sheegina annaga kaligeen wax ma qaban karno waxaan diyaar u ahay inaan idin adeegno gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Yariso Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariso wuxuu u taagan yahay inuu bulshada loo adeego caasimadda wuxuu diyaar u yahay waxqabadka caasimadda waxaan idin sheegina annaga dhan madaxda u sareeyo madaxweynaha iyo midka u hooseeyo wuxuu diyaar u yahay inaan idin wada adeegno idinkana waxaan idinka rabnaa kuwa dawladda ilaalin lahaa gacan siin lahaa inaan noqotiin bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir